السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaad ku soo dhawaataan casharadeenii online-ka ee dugsiga Al-Imra Brand 3 waxaan qaadanaynaa casharkeeni ahay lesson 51 casharka qontoniga koowaad la socod wanaagsan lesson 51 casharka qontoniga koowaad. I'm newcomer waxaan ahay marti cusub and I want waxaan doonayaa to join this school inaan ku soo biiro dugsigan. So sidaa daraadeeda can you please give me fadlan ma siin kartaa enough information oga warbixin about ku saabsan the school dugsiga. I'm newcomer waxaan ahay marti cusub and I want waxaan doonayaa to join inaan ku soo biiro this school dugsigan. So sidaa daraadeeda can you please give me fadlan ma siin kartaa ereyga please waa fadlan give na waa siin enough information oga warbixin about information waa warbixin about ku saabsan the school dugsiga. Okay, hagaag this is a private school kani waa dugsi qaad ah private waa dugsi gaar loo leeyahay and it has one main branch wuxuu leeyahay hal qaybood oo weyn ah. It's located in Yakshiid district waxaana ku daalaa degmada Yakshiid especially Sisi xaafadda Sisi village xaafadda Sisi. Its name magaciisana is waa Al-Imra Brand 3 farax saddexaad Al-Imra. We take waxaan qaadanaa good lessons cashiro wanaagsan. The teachers macallimiinta are experienced waxay khibrad u leeyihiin in teaching baridda. Is that one of the teachers kaasi mid ka mid ah macallimiinta? Yes, he is member of xubin ka yahay the teachers macallimiinta. He is Abdullah magaciisana waa Abdullah. What does he teach? Muxuu dhigaa waay? He teaches wuxuu dhigaa English and math xisaabta Ingiriiska. Okay, this is a private school kani waa dugsi qaas ah. It has one main branch wuxuu leeyahay hal qaybood oo weyn. Branch waa qayb ama wax. It's located in wuxuu ku yaalaa Yakshiid district degmada Yakshiid especially qaasatan Sisi village xaafadda Sisi. Its name magaciisana is waa Al-Imra Brand 3 farac saddexaad Al-Imra. We take waxaan qaadanaa good lessons cashiro wanaagsan. The teachers macallimiinta are experienced waxay khibrad u leeyihiin in teaching baridda qaabka dadka wax loo barayo khibrad u leeyihiin. Is that one of the teachers kaasi ma mid ka mid ah? Is that one of the teachers kaasi ma mid ka mid ah macallimiinta? Yes, he is member of the teachers wuxuu xubin ka yahay member of xubinka the teachers macallimiinta. He is Abdullah magaciisana waa Abdullah ama Abdullahi. What does he teach? Muxuu dhigaa? He teaches wuxuu dhigaa English of Ingiriiska and math iyo xisaabta.